shirkani oo muddo uga socday deegaanka Ismaaciil Xuseen mid ka mid ah beelaha ugu waaweyn ee dega gobolka Togdheer ayaa lagu soo xiray deegaankaasi waxaana shirkaasi uu ahaa mid beeshu ay kaga tashanaysa aayahooda mustaqbal gunaanadka shirkaasi waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco ugu horeynba waxaa halkaasi laga akhriyay warmurtiyeed beeshu ka soo saartay shirkaasi muddadii uu socday daaga beesha Ismaaciil Xuseen oo ka tirsan ardayda reer Xuseen waxay isla qaadatay xoojiyo nimada reerka lagana fogaado wax kasta oo tafaraarku keeni kara laba ilaaliyo nabadgelyada xasiloonida iyo deris wanaaga deegaanka iyo guud ahaanba gobolkeena Togdheer saddex in la ilaaliyo deegaanka imika waxay deegaanka aynu ku noolahay ku dhaqanahay lagana hortago wax kasta oo keeni kara xaaluf sida goynta dhirka shidida dhuxusha iyo wixii la mid afar beeshu waxay ku heshiisay islana qaadatay u diyaar garowga iyo ka qayb qaadashada doorashooyinka inagu soo fool leh ee golayaasha deegaanka baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo socda odayaal cuqaal iyo waxgarad hadallada iska daba qaatay ayaa shirkaasi ku tilmaamay mid midho dhal ah isla markaana ay ka soo baxeen qodobo muhiim ah mahad celiyo ajiibidii aan soo iibteen codsiga iyagii ahaa inaan nagala soo qayb gashaan magaalada Ismaaciil Xuseen oo in muddo ah socotay hawsheedu waxaan u mahadnaqaynaa guddigii qabanqaabada shirweynaha Ismaaciil Xuseen waxaan u mahadnaqaynaa reer guuraaga iyagii iyo reer miyiga iyagii xoolaha noo keenay waxaan u mahadnaqaynaa dhammaanba cid kasta oo qayb ka qaadatay imika 2 bilood iyo 3 bilood ka hortay dad yar baa joogay maanta 200 oo qoys baa degan waxa ka dhisan ilaa 100 guri tan magaalada saldhig bay u baahan tahay qurxin kale ay u baahan tahay intii qaybtiina ahayd inaan ala qaadataan baan martay idinka gobolka ka madaxay shirku wuxuu ahaa shir nabadgelyo iyo daneed waxa lagu hayay wanaag iyo midnimo iyo in laga shaqeeyo iyo xasiloonida dadka waxa qabta waa shicibka community service ba caalamka oo dhan ku nool yahay taasna waxa keena dadku inuu inaan ma garanaysa isagu wuxuu qabsado waa ismuujiyeen bilcawsta ka bixi mayso haddaynan heer gobol iyo heer degmo iyo heer qaranba ilaahay waxa ka baraya beesha reer Xuseen shir hoosaadkooda waxa uu heer kalo Xuseen Xidiid oo dhan ayaa meesha ku sugan ilaahay waxa ka baraya in ilaahay taxadigooda kor u qaadaan laakiin magaaladana magaalo hor u marta oo malcaamadeeda iyo iskuuladeeda iyo waxbarashadeeda iyo wax waliba ay hirgalaan ayaa ilaahay uga baryamaa qofkii ogaa inuu muddo dheer ka maqraab moodaya tirada yar ay wax isku bedeleen horumarka iyo wanaaga iyo sharafta iyo karaamada oo horseedeen beesha reer Togdheer id ku daysho wanaagsan idinku sugan tahay sida dadkiini ugu soo sharafteen ee ugu yeedheen ayaan idinka mahad celinaynaa haruun bay inoo dhigteen oo inagu xasuumeen waxayna tuseen reer Xuseen Xidiid waxay qabsadeen mooyaane baahidoodii waxay u degeen si ballaaran oo qiimaysan oo wax walba mutaysan karta oo degaana ugu dambeynna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Diiri Yaxay Daljir iyo sidoo kale maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad dawladdu waxay geysataa waa wax danta guud ah idinka waxa la idinka baayay qurbajoog iyo qulqulbajoog ba inaan magaalada dhistaan laamiga halkan soo socdana waxa haray inteeni dawladda dhexe ilaa madaxweyne ilaa golayaal ilaa walba oo wax qaban kareysana waxaan u sheegaynaa in kaalinteedu bannaan tahay la idin sheegay reerku wuxuu ballan qaadayaa oo taladiisa iyo go'aamadiisa ay ka soo baxay ay noqdeen sidii la idin akhriyay annagu gacan baan ku leenahay mid horena waan ka geysanay tadamana haday tahay saldhigiyo hadii ay tahay maaragtay waxyaabihii kala iskuul iyo waxyaabihii kale ay degmadu u baahnayd shakhsiyan waan uga qayb qaadanaya dawladda hoose ahaan waan uga qayb qaadan wadadan inta badan la sheegayna wasiir Cabdullaahi Bakar baa sameeyay isagana oran doona wasiir Sawdurki Baash waxa uu horeeyay la qaato waxa uu horeeyay nabadgelyo ka muddada fadhideen ku jireyseen haddaan nabadgelyo jirin maydu fadhideen waxa la idinka rabaa qodobada agaadheen inay hirgelisaan waxa la idinka rabaa inaad jaarkiina nabad kula noolaataan waxa la idinka rabaa inaad iska reebtaan ufiga iyo xumaanta waxa la idinka rabaa sidii aroori bari ahaan jirtay inay ahaataan idinkiyo dadka kale wada degantiin waliba dawladda dhexe maadaama ka wakiilahay waxaanu ku dadaalaynaa wadada seen u dheereyno waxa jirta wada kale oo wadada dheer ka bilaamaysa oo waraabiye gelaysa Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi wararka telefishinka Ariel magaalada Burco.